السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولالكين أحمد ولي كسر وهذا مرة مرتاح يوتيوب channel كيكو عصبتها سبسكرايب قرأي لايك قرأي شير قرأي أنا كومنت مرة وحاسمينا فيديوهال أو وحيقولين فيديوهال كل دون برانكس فلوجز حياة بدنا سمينا مرة كسر وهذا يوتيوب channel كيكا وأنا كحوم أصحابي هذا معلومة إذا كم قناة إن بدنا إذا كم مشغولي life is so hard واسك تخيلين وحياة بدنا اسكجرو marka insha Allah hadan waa soo laabanay dhamaan halkan ay idin weysana marka maanta waxa halkan soo galay waxay tahay inaan ka hadlo cudurka la yiraahdo coronavirus oo hadda cusub ma ahan cudur cusub waa cudurkan horta waxa la helay sidiisa banaan 1960kii la helay wuxuu ku dhacaa xoolaha shimbiraha iyo dadka ku dhacaa soo intaas dadku dhaco laakiin cudurkan ma uusan ahaan jirin cudur ku badan dadka bini'aadanka badana wuxuu ku dhacaa xoolaha boqolkiiba sida doonfaarka sida shimbiraha sida lo'da iyo waxyaabahaas oo ku dhacaa cudurkan hadda waxaa laga helay dalka China gobol ka mid ah waxaana la helay dhamaadka January 2020 oo hadda ku jirno marka koow la helay waxaa la ogaaday in saameyn u geystay 800 oo ruux ah marka wadamo badan cudurkaas hadda China ay u gudbiyeen oo kamid tahay Canada Australia Arbaha inkastoo Saudi Arabia ay diiday laakiin hal gabar Saudi Arabia oo Hindi ah laga helay Afrikana waxaana lagu sheegay in laga helay dalka Ethiopia iyo Kenya marka taas sahdee وهذا أنا أفريقيا هاي أو أفريقيا أكون هاي وأنا إسكت حدرنا أو مر والبو إسك إلى علينا عذر كاس وعذر دلاء على مدى لو قرتنا وحكمت أما السيد الله كلا إنا قبتد على مدى أو قرن كرت وحكمت إنا سيد أسوأ حالات دري أما سيد هرجب كأكله because some people كلها وحدري مثال like قنفع بدن intuu ku cunto waxa dareemaysaa qunfac qandho madax xanuun hintisho badan oo maantan istaba joog ah cudurkaas marka qofka bini'aadanka koow laga helo isla markii lama ogaan karo inuu haysto coronavirus illa iyo oo ma taqaanayo qofkaas qaato 7 days so ila 3 to 7 days oo qofka jirkiisa uga soo baxaa markii la ogaadeen waa mar uu sanbabaha already u gudbiyay kaliyaha oo cudurka faafay ilaa ay haddana lama helin wixii daawadiis ahaa oo ma jiro like maxaa dhihi jiray sheeg ma jiro talaal asi u gooni ah oo cudurkaas lagu talaalayo ma jiro daawo u gaar ah oo asiga lagu daaweynayo inkastoo hadda dawladda China ay heshay oo lagu guuleystay إلا يسدح قف لو بريكهر لكن إلا هذا ما يسنا عام بحنو ويولي من شعب بحنو إلا هذا وحال رادنا داودا أو عذر كاس إيو تلال كيسا مركا قفك عذر كاس خبو قفك كلا وحوق قدبين كرا إنو قفك كلا هنتشا وأدو ماشي جوتي أو قفكاس دي أو بكتيريا كاسو بحداي هذا ستوسع كور عضو إيو قفك oo cudurka qabo ina istaabataan taabashada lagu gudbin karaa like waxa kale lagu gudbin karaa qof like meelaha irdaha lagu farmaato iyo musqulaha la falaasho iyo musqulaha oo kan lagu furo tubada qofka haduu qabo cudurka coronavirus oo taabto adigana si toos ah kugu dhaca cudurkaas in la isla sahlo isku neefsado waa sida TB oo kale iyo hargabka si loo qaado asigana loo kala qaadaa cudurkaas China almost dad badan u dhinteen laakiin way isku dayayaan sida ay cudurkaas uga bixi lahaayeen xal uga heli lahaayeen marka ana waxaan rabaa inaan dadkayga Soomaaliya afka Soomaaliya ku hadlo aan u diro baaq dawladda Soomaaliya aan u diro baaq inkastoo af Soomaaliya fahmaysa oo diro baaq cudurkaas waa cudur dilaa ah dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaa in ay alboorada naga dhigaan maxaa dhihi jiray dad baaro iyo qalab lagu baaro hadda wadankan joogno kale
qofka soo galayo waa la baaraa oo waa la kontroolaa inuu cudurka qabo iyo in kale. marka dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaa inay naga baaraan aysan dadkeena u gudbin cudurka because waxaan ahay dawlad daciif ah wadamada anaga naga horumarsan waxay ka taagan qaatibila. so dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaa inay dadaal sameeyaan meel kasta border walbo oo laga soo gali karo dalka Soomaaliya ay dhigaan dhaqaantiir baarto cudurkaas because cudurkaas hadduu waddankan soo galo way adag tahay saa iskaga difaacnay because cudurro yar yaraan ilaa had iska difaaci waay meel iska saar lanahay. so cudurkaas waa dilaa. marka sidaa uu cudurkaasi uga hortagi lahayd maxaa ka mid ah inaa heshid mask oo aad sanka ku xiratid because waxa ugu horeeya lagu kala gudbiyo waa neefta iyo handishada. mask wajiga lagu xirto oo ilaa intaan ay hadda xiran Chinese iyo adduunka oo dhan iyo hadda dhulka joogna xitaa sida Kenya loogu sheegay waddanka joogna hadda zaid loogu xirtaa because qof walba caafimaadkiisu jecel yahay because nobody knows qofka qaba iyo qofka aan qabin dadkii isku already dadkii isku milmeen mala kala yaqaan. marka mid kale arabi aan sheegay waxay tahay cudurkaas wuxuu leeyahay neefta ku dhibto neefta zaid ku dhibto oo aadan xataa awoodin inaad neefsatid ay neefta ku dhibto kugu noqoto zaid xanuun. marka intaan kadib inaan ku dheeraado marabo because de hadal badan haama buuxsho. waxaan mar walba ilaahay idinkaga barshaa dadkayga Soomaaliya inuu ilaahay dhibaatada naga qaado oo wixii cudurkaas iyo cudurro kaleba ilaahay naga hayo. haddana maskan anaa iskale oo anaa isticmaalo because ina dhinto mar iyo inshallah ka dhimashada mar walba xaq waaye nin walba u dhimanaa. maskan saan u yaalaa dhinac cadaan waaye dhinacna waa blue. mar walba dhinaca cadaanka outside marsiinaysaa because geedihiisaan hoose u face garaysan yihiin ma fahanteen. so markaa maskana xiratid saasa u xiranaysaa. meeshan wuxuu ku qabaa pin yar oo loogu talagalay in sanka loogu dhijiyo. pinkaas yar sankaas saas loogu dhijinaa qof walbo sidoosan ugu soo fuqin oona u dareemo comfortable intan saas. hadda marka way adag tahay inuu fuqo like ma fududa sidoo ku bixi lahaa like haddaad xiran pinkan oo for example oo pinkan uu saan ku yahay way fudud tahay inuu ka dhaco. marka mar walba waxa ku dadaashaa inaad pinka si fiican u xiratid oo de qofka bini'aadamka isku san ma ahan oo halkaan saan ugu xiratid ma fahamtay. so marka way adkaanaysaa inuu fuqo geedkan. mid kale maalmaha waxa maqlaayay bahalkan zaid uga dumayaa ana xataa hadda almost lacag badan oo igma laha because haddaa isticmaashid 2 days to 3 days inaa iska turtid waan oo one time user waa xataa like de haddaa oo ka fikiraysid lacagtaada inaa iska isticmaashid so 2 to 3 days oo ku hayn doonaa maanta. marka asxaabay midaan waa midaas waana lagama maarmaan because HIV-ga waa iska ilaalin kartaa because qofka HIV-ga qabo waa inuu qofka kale la sameeyaa galmo ama in la sameeyaa dhiig iyo cirbido qofkaas isticmaalay inuu isticmaalo. so HIV-ga way fududahay sida la iskaga ilaaliyo haddaad adii raadsan asoo ku soo laakiin cudurkan haddaa meel maraysid asoo ku soo raadsanaya waa cudur dilaa ah. Soomaali badan waxaa maqli dhahayaan cudurkan waa la abuuray. cudurkan lama abuurin 1960kii la helay xoolahan ku dhici jiray iyo dadka qaar. so cudurkan lama abuurin mar hore jiray laakiin ma aan baxsaneen hadda dalka China aan bixi. dalka China hane problemka waxa uu keenay waa sida ku maqleen qof ayaga kamid hal qof ayaga kamid wuxuu cunay hilibka doonfaarka ama hilibka shimbirka oo cudurkaas qabo. markas that's why Chinese-ka oo ugu heleen wadankooda cudurkaas because the waxa ilaahay xaraan ka dhigay in laga fogaado mar walba fiican tahay. hadda for example hadda waxaa jira cudurada anaga hergabka caadiga nagu dhaco aan noolnahay waxaa jira xayawaano haddii ku dhacaan ay dhimanayaan si toos waxaa kamid ah xayawaanadaas
daayar kinkowga midka weyn hadda marka for example zuga aad tagtid lagama ogolaanayo inaad aragtid daayarka kinkowga haddaa qabtid hargab because daayarka hargabkaas markuu kaa qaado waxuu daayarkaas ku dhacayo inuu hargabkaas la dhinto because de anaga caadi waa la noolnahay asiga difaacaas ma hayo oo inuu la dhintay u badan tahay so that's why ayaga cudurka haystaan ay la nool yihiin oo anaga no dhibaa sometimes so waxaa jiro cuduro qaar anaga haysano oo ayaga haday helaan oo dhibaayo cuduro qaar ayaga haystaan oo anaga hadaa helno zaaid no dhibaayo oo aan ku dhimanayn hada yani war idinku daarinin mar walbana de Soomaaliya dawladda waxaan mar walba kala taliyaa inay daawiyaan xayawaanaadka caafimaadkooda ka fikiraan wasaaradda oo xayawaanaadka mar walba waxaan isheego kula taliyaa inay daawiyaan because xayawaanka cudur badan laga helaa oo ayaga caadi la ah laakiin anagana dhibaa bini'aadan ahaan marka saxaaba inaan warkan ugu daariyo intaan kadib marow maaskan inaan helno ku qasbanahay qof walbo waa hadaa Kenya joogto horta waa qasba u baahan tahay because already cudurka Kenya wuu joogaa oo waa laga sheegay Ethiopia hadaa joogtid waa u baahan tahay dalka China hadaa joogtid waa iska badaa sheegtada because waa weyn ka tahay in laga fogaado waxda so igala noqos ka kaftamay because marwin dadka cudurka qaba inaa sheego ku jarjarso just kaftana iga ina video ku dheeraad intaan kadib maro de waxaan idin leeyahay waa walaalkiina Axmed Weli mar labaad mar saddexaad ku soo dhawaad YouTube channel-kayga please subscribe garee like garee share garee comment waxaan sameynaa funaanado oo campus ah oo qof walba magaciisa loo qoraayo qof walba picture-kiisa loo gelinayo marka ninkii rabo wuxuu igala soo xiriiri karaa Facebook-kayga Snapchat-kayga Instagram-kayga de WhatsApp-kayga madaa because WhatsApp-kayga public ma private one marka saxaabe de intaas iyo in ka badan inaan sheekay waa jeclaa laakiin waqtiga aan mar walba in la ilaaliyo mudan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa walaalkiin Axmed Cabdi